barnaamijka toddobaadka iyo daacad qodobadan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah kumanaan kun oo qaxootiga ku soo barakacay dalka Soomaaliya iyagoo dadkaasi ay ka soo hayaameen dalkaasi Yemen oo ay ka socdaan dagaalo ba'an. rabshadihii ka socday dalka Koonfur Afrika ayaa yaraaday kadib markii ganacsatada Soomaaliyeed ay meheradahooda dib u furteen. maamulka magaalada Cadaada ayaa ku dhawaaqay in nadaafadda laga shaqeeyo magaaladaasi iyadoo ay ka socdaan shirarka gobolada dhexe. fanaanada caanka ah Nimco Yaasiin ayaa waxaa la weydiiyey markay reerkeeda heshay bal siduu dareenkeeda noqday. kumanaan kun oo qaxootiga oo ka soo barakacay dalkaasi Yemen ayaa soo gaaray xeebaha magaalada Boosaaso iyo magaalada Berbera ee dalka Soomaaliya. dadkaasi ayaa waxay ka soo barakaceen dagaalada ka socda waddankaasi Yemen iyadoo dadkaasi ay isugu jiraan dad waayeelo, caruur iyo sidoo kaleeto dadkani waxay u kala dhasheen wadamadan Itoobiya, Soomaaliya iyo Yemen. dadkani ayaa waxaa loo saaray guddi dib u dejin u sameeyo iyadoo taasi macnaheeduna ay tahay in haatan Soomaaliya ay tahay waddan nabad oo la isku haleyn karo. dhanka kale 700 oo qaxooti ayaa gaaray dalkaasi Talyaaniga iyadoo dadkaasi ay sii mareen xeebtan Lampedusa ayaa dadkaasi waxaa isugu jiray haweeney uur leh iyo caruur. sidoo kaleeto madaxweynaha waddanka Talyaaniga ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dadkani gargaar loo fidiyo isagoo ka codsaday EU-da inay caawinaad ka siiyaan. sidoo kaleeto UN-ka ayaa sheegay sanadkii tagay ee la soo dhaafay 2014 inay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 3500 oo tahriibayaal ah. taasina macnaheedu waxay tahay in xeebahaasi ay leedahay khatarteeda. rabshadihii ka socday dalka Koonfur Afrika ayaa haatan soo yaraanaya iyadoo dadkii Soomaaliyeed ganacsadooda ay dib u soo furteen iyadoo sidaan ognahay sida aad ugu jeedaan dadkani ayaa waxaa lagu hayay in muddo ah dhac, boob iyo sidoo kaleeto in nolosha lagu gubo. dadkani ayaa shacabka South Africa waxay u muujiyeen inay yihiin dad necib dadka ajaanibta ah. sidaan ognahay South Africa markii intaysan xornimada qaadan 1994 dalka Soomaaliya waxay ka caawisay in xornimadooda ay qaataan. dadaal badan ayay u sameysay iyadoo ciidamadooda lagu tababari jiray dalkaasi Soomaaliya. sidoo kale mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka South Africa ayaa wuxuu ka hor cadeeyay madaxweynaha dalkaasi in asaga uu mas'uul ka yahay maadaama uu ku jiro dadkaasi wiilkiisa oo asaga dhalay. wuxuuna u sheegay in dadkan ajaanibka dhibaatada lagu hayo uu ka joojiyo. You have lost control of the country because you have lost control of your own family. Your own son continues to say these people must be killed. You stand up here and you do not say anything. The King Zwelithini has been misinterpreted as he says. We accept that explanation. But you do not take a platform to ask the king. maamulka Cadaada ayaa ku baaqay in nadaafadda laga shaqeeyo iyadoo xilli aan ognahay inay ka socoto magaaladaasi shirarka gobolada dhexe oo la doonayo in musharax halkaasi uu ka soo baxo. shirkan ayaa furitaankiisa waxaa furay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ku baaqay in goboladaasi ay yihiin lafdhabarka dalka Soomaaliya ayna muhiim u yihiin in markaasi ay maamul ay u midaysan yihiin ay sameystaan. iyo dadkii maxaan ku raadaa muuqaalka wanaagsan iyo ku ahaa muxuu ahaay dawladii iyo xorriyaddii dalkan ayaa gobolada dhexe ka yimidaan. laakiin dadka Soomaalida waxa kale ku xantaan waa ogtiin dawladii sidaas xorriyaddeeda la soo halgamay dad badan maanta waxay ku qanacayaan in gobolada dhexe laga dumiyey. marka maanta in gobolada dhexe haddana laga dhiso oo loo istaago dawladnimadii horta gobolada dhexe meesha gobolada dhexe lidin mugta Soomaaliya nusna xaggan ka xiga nusna xaggan ka xiga dhaxdii ku yaalan haddii marka ayaga dhaxda ay ka baxaan labada dhinac ee dhinacyada jira isku imaan karaan. marka dadkii Soomaaliya isu keeni lahaa oo dalka midayn lahaa oo midnimadiisu ku shaqayn lahaa yaa tihiin waana garateen alxamdulillah. intaas kadib dhammaan mar kale aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa dadaalkiina iyo farxadda iyo wanaagga idinka muuqda niyad samida ilaahay idinkiis waad guulaysanaysaan guulaysta. waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkii maamul samaynta gobolada Mudug iyo Galgaduud waa furaya. ugu dambeyntiina daawadayaal fanaanada caanka ah Nimco Yaasiin Caraale ayaa waraysi siisay telefishinka qaranka Soomaaliyeed barnaamijka xidigaha uu daadihiyo wariye Cabdullaahi Wiish. waxaa la weydiiyay bal fanaanada markay reerkeedii heshay sidoo ahaa dareenkeeda. wariye Cabdullaahi Wiish waa wariyaasha ugu barnaamijyada badan mid kamid ah wariyaasha TV-ga
qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada London waxaana markuu weydiiyay ugu jawaabtay fanaanada maalinta kugu horeysay markaad is aragteen bal waxaad noogu warantaa dareenka dhabka iyo sawirka dhabta ah maalintaas dhacay bal haddaad shakadaas kastoo maaragtay wax noogu sheegtay wallahi taada qofka soo iska garanaya haye tawada markaan arkay farxad baan dhiman gaaray haye waxaanad moodaa in ilaahay baan ku dhaartay waa magacii ilaahay waa anigoo gaboobay haye meel ayaanan uga eekayn qofka islaamka ma jirto haye far haday tahay gacan haday tahay dheer haday tahay waji haday tahay waa aniga unoo gaboobay bis burca jaamac xirsi ayaa waxay u soo gashay hooyadeed oo intaasi kala baadeen oo kala maqnaayeen bal hooyo erayada ugu horeeyay caawa haddaan hooyo mabay kicin ba 7 cisho wallahi waxaan cunin haye farxad iyo waxa isugu dirsamay iyo xanuunba haye waxay u tan burca jaamac xirsi ay soo noqotay waana sugayay beter haye waxaan sugayay oo lagu yiri gabadhaasi hay'ado weyn baad arki doontaa haye koodhi haye islaanska suufiyada bay iska haydo ilaahay iska aaminsan haye tii un bay ilaahay u rumeeyay way aragtay farxad baa sameynay DNA baan sameynay DNA iyagu DNA bay maadaama dunida casriyooday ha of course Abu Dhabi bay joogaan Mareykan bay joogaan Canada joogaan haye waa inaan DNA baan kala qaadnay timahayga iyo timaha hooyo haye halkan aan keenay aniga wiilkii Axmed Sujuuy qabay haye qaar Mareykan bay geeyeen haye Abu Dhabi haye hooyadii bay noqotay mar haddaan hooyadii life u arkeen oo nool ha waxaan sheegaa dambe ma jirto wax la waxay daawadayaal barnaamijkeena toddobaadka idaacad xubintaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad waxaa dhanka farsamada iyo kaamiradan iga caawinayay waa Maxamed Deeko intaan barnaamijkan ku kulmi doonaan waxaan idinkaga tagaynaa dhammaanteen isku duuban sidaas iyo nabad gelyo